muqdisho dhulboobkii dib ayaa xamar uga curtay guryo burburintii dib ayaa loo bilaabay guddigii madaxweynuhu magacaabay ee mataqaanaa uu ku jira ninkii la yidhaahdo sheekh yuusuf tuurxu madaxdu ahaana waa la caburiye buula laga dhigay maanta injineer cumar aftooja dhulkiisii damanyaalaha sharciga ahaa ee soorikey waaba dhisnay dabaqa laga dhisnayba maxkamadaana tin lama dhisi karo ogow dhulkaas ninkaas askar maxkamad soo xukuntay sharci uu ahaa dhulkii garaad cali garaad jaamac garaad cali aabihii dhulbahantaha damanyaalihii soorikey waa la boobay dhul kasta oo sharciya maanta waa la boobay dib baa loo bilaaba cagafki dib bay u howlgasho maanta shaqadii waa socotaa dadka waxaa laga dhigayay micnaha guddi baa la magacaabay ha loo tago guddiga halkiistaba qaban halkiis cid dhegaysatay iyo qof dan kale male maanta soorikey sideediiba boobka u socday tarabuunka sidiisuu u socday filla baydhaba sidiisuu u socday meel kasto dhulkii boobkii siduu soo laabtay waa qodobtaas arrin kale ayuu sheegaya habargidir caawa shir bay u fadhidaa dal iyo dibad shir bay leedahay habargidir caawa war ka soo baxaya dagaalka mucaaradka ma ku biiraysaa habargidir bus waa ka joogaysaa go'aankeeda caawa soo baxaya anaa idin hay warka way fadhiyaan waxa weeye laakiin nimankii artay abgaal iyo nimankii mursade iyo nimankii macalin dhiblaabe wax weyn baa ku dhacay xala waa la isbaaxsaday waxaan adduunkaba ka dhicin hubkii qabiiladu ay lahaayeen hadda ka hora maxaakiimta qalad gashay hawiyo hub fiican haysta hubkoodii bay burburiyeen maanta waa aragtaa waxa taagan maantana hubkii qabiiladu ee markii waxaad sheekh shalay farmaajiro dagaala lagu badbaaday yuu maanta rabaa shalay hubka hadda kursiga ninkan uun laba goorro moogtaa adiga dowde dadka inta laa yidhaahdo madaxweyne iska ah xitaa mar baa laga tuuri doonaa moogta marka laga tuuro ee hubkii lagu difaaci lahaa way wuxuu maanta baabi'inaya madaxweynuhu waxa weeye markaa abargiir shir baa u socda war baa ka soo baxaya laakiin xamar waxa ka socdo uma eka nidaam oo dowladeed uma eka waxay u eg tahay xoog sheegasho qabqab wixii hore soo daawo jirnay isu awood sheegasho reer hebel halbahdilo harta abgaal hala celiyado guryaha laga dudumiyo ganacsigooda hala galo waxaasina dagaal sokay unbaa laga filan karaa wax kaloo ka soo baxaya male agoonyar gaabaan kaa aqaanaa waddadii galaya ilaahay gu ogyahay ganacsigay gelayaan agoonyar taagnaan ma hadduu taagnaado dhigahaasaa laga dulina agoonyar duu aarsan waayo macalin dhiblaa waan aqaanaa fiirso waxay sameeyaan habargidiri mursane ola afka biyo uga buuxeen marka dowladahan oo federaalka aniga waa joojiyey siyaasi inaan dhaho hebelaa fiican hebelaa xun waxaas ani waa joojiyey sababtoo ah siyaasiga si kastoo aan u bumbuunino si kastoo u soo dhisno markuu kursiga helo kumaba yaqaanaba marka maxaad isu gelinaya waqti fara badan waxa idin sheegay waxaa weeye soomaaliya marxalad adag gashay xaalad adag ee soomaaliya wajahday waa ogaan doontaan xaalad adagay wajahday waxaana dhici karto ciidamada inay gadood sameeyaan waxaan hadda howlgallada lagu sheegay taliyaasha aadan dheere iyo ku faraxsan yihiin iyo macallimahadii laakiin ciidamadu kuma faraxsana ciidamadu afkaa biyo uga buuxaan jahayni la cihi saraakiil jahayso waxaa dhici karta in isbeddel kale oo dafinayna uu ka dhaco muqdisho marka waa ka war sugaynaa laakiin halka qodoba rab u soo gala wuxuu ahaa life baan rabaa inaan soo galo right now aadala hadlayo hadda life u socda tiktok laakiin qodobka u soo gala meesha wuxuu ahaa inaan idiin sheego in dhulboobkii uu xamar iyo barakicintii ay dib uga bilaabatay oo hala joojiyadii madaxweyne xasan sheekh ay ahayd dadka lagu seexinaya mooye hawsha hadday kow tahayba haddiiba injineer cumar aftooji gurigiisa maanta loo dhacay meel la dhaafaya ma jirto cid la dhaafaya dadka hadda habargiisa waa faraxsanta qaarkood abgaalkii baa isbahdilahaya wiilasha iyadii baa bahdilaysa doofaarta fahdhashay haa laakiin habargiiray xabadda kuma socoto futada abgaal iyo mursade futadiina ku socotaa idinkana haddaa arkaya guryihiinna haddaa arki doontaa guryihiinna hadalkayga qora haddaa nin filosofiyo yaqaano saxaafadda muddo ka shaqeeye ahay haddaad arki doontaan ogaada waxa dhaco waa daara caso dhaa dabaysha geeda umar waxdina ciyaarsiiso ha biqlayso qodobka siyaasaddan kala hadlayaa maanta qodobka siyaasadda ogaada hadalkayga fahma waxaa idin kala hadlaa waa qodob siyaasi waay firi abdeyd baa idinka siinayaa xasan sheekh dagaalka wuu galay iyo qorshihiis waa idiin sheegayaa
turkiga iyo qorshadu waa idin sheegayaa mucaaradka turkiga waxay ku hadlo waa idin sheegayaa godobta murugsade laga galay ee ay tiq tahay ee laga yaabo in 100 sano hadda dhiman aysan dhammaanna waa idin sheegayaa warka alaa idin haya fiiri waxa weeye madaxweyne xasan sheekh oday hawiye isagoo ah oo oday hawiye ugu weynay ah dagaalka uu galay suuq galaba way dhacday wuu galay sheekh shariif in la weeraro in mataqaana ilaahay kuma soo diiday ugaaskii murugsade siyaasigii murugsade sanatarkii murugsaday nabadoonnadii murugsade darool lagu garaaco waxaas oo laga dhiiqada waa galay dhaxdu ka galay madaxweyne xasan sheekh marka muxuu sameynaa marka arrinta sidoo marka u malaynaya ma noqonin meel kale ka soo baxay sheekada hadda marka ninka waa nin xariifa wuxuu ku mashquulinayaa dadka hubka dhigis iyo mashruuc kaloo furay si wixii dhacay dadka looga mashquuliyo looga jiheeyo laakiin hadda xasan sheekh iyo xilligan u dhowba doorasho kama sii hadlaayo arrintu waa adkaatay waaya haddaba nimanka turkiga kaga warramaya turki nimanka leedo turki soomaaliya jaanis ay ka heleen heshiisyo indhaha la isku hayay ka heleen labada indhood la isku haya alaskaga saxiixa kalluumaysigii shidaalkii qadaraasyo wax aysan weligood maleehayn ay heleen wayna og yihiin ma aaminayaan musharaxiinta kale marka laga reebo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan maxamuud mooye musharax kale haddii ay meesha ku soo baxo doorashada madaxweynaha soomaaliya in waxooda la kala tuuraayo shaqaynay waa og yihiin maxay ku qasban yihiin inay keenaan farsamo madaxweyne xasan sheekh 2 sano oo ku sii joogo horta bal faham waxaad ka loo siyaasad aniga ma ogtahay mihi sheekh shariif iyo laflaf iyo xasan sheekh laflaf iyo farmaajo laflaf mihi oday isku filan waa ahay mogta oo xogta idin sheega warka idin sheega mogta oday waxa jira idin sheegana marka turkida saaka waa baxeen shariif sheekh axmed u tageen iyo mucaaradku waxay ku dhaheen niman yahobow qodobada aad soo qorteen ee xasan doorashada dadban iyo doorashada beebaanta ha joojiyo iyo ciidamada ha naga dul qaado iyo waddooyinka ciidamada hala yameeyo iyo raaliginaha waxa laga bixiyo shuruudaha hordhaca naga dhaafa mucaaradow kow shuruudaha hordhaca naga dhaafa guddi soo magacaawda xasha guddi soo magacaaba road maama sameeyna doorasho annaga aan hoggaan ka nahay oo lagu qanacsan yahay ayaa la qabanaya waana ognahay in doorasho dhicin oo qof iyo cod dalka turkiga saas dhicin turkiga soomaaliduna mataqaana aad ay xiriir u leeyihiin ugu yaa nimanka mar hore dhex galeen waxay iska haystaan hiqay naga dheheen hiq turki waa naga dhergeen xarfaan waa sida loo qarabta yaqaanaa waryan kugu daal hawshu saasay u socotaa jawaabaa laga sugayaa nimanka mucaaradka ah laakiin xasan sheekh wixii uu sameeyey ku faraxsanaa maya waayo maxaa marka hadda taagan weerarka lagu qaaday ay hiraab ku qaadeen oo wada socda murugsade ee lagu rusheeyey weerarka lagu qaada shariif sheekh axmed waa ka awood badan yahay haddii habargii la weeri lahaana weerarka habargii raqiis noqon lahaa kan murugsadaha lagu qaaday ayaa wax walba ka culays badan xasan sheekhna waa ogida baal ma ah murugsade kooda yar iyo kooda weyn salkay isla galeen caro iyo ciil iyo cuqdad iyo dagaal bayna qabaan ogaada horta ogaada baasha horta halkaasay maraysaa warku halkaasuu marayaa okay haddaba hadda maxaa dhacayo sheekooyin xasaasiya idin hayaa iska ilo waxaan oo darona maanta la qabta iyo hobaa la arona iyo waxyaabihii dhacay ee ka dhacay baramuudo iyo waxyaabihii ka dhacay hotel eriyadii guriga cilmahd iyo waxyaabaha kaloo socda iyo ceebaha dhacay ee waaweyn yaa dadka lagu mashquulinaya waa mashquulin dadkaa lagu jahaynaya laakiin arrin weyn baa dhacday dhegeyso warkuna meel kastuu gaar xitaa waxyaabaha laisku haysta waxaa ka mid a in odayaasha dhaqanka hawiyaha la weeraro meelay joogaan dhaqan soomaaliyeed ma ahayn haddii hadda oo nin hawiyaho madaxweyne ah oo ninka brofessor ah oo weerarkaa geystana dee ninka daaroodka imaan doona ka gayoomaayo isna wuu samayn doonaa sababtoo a kii ka horreeyaaba samey moogta arrimahaasoo dhan baa taagan marka harta abgaar shir bay isugu laabteen mursadana shir bay isugu laabteen habargiisna shir bay isugu laabteen waxbaa la karkarinayaa nimanka mucaaradka baarlamaanka turkiga waa og yihiin inay xasan sheekh ku dhammaanayaan oo wuxuu xasan sheekh rabo kaliya aaminsan wuxuu leeyahay annaga xasan sheekh ma rabno inuu hubkeena isticmaalamaba ahaynba daroonka waxaa ka iyo hebel waxaas yeelaa waa been turkigu
xasan sheekhay la socdaan marka warbixinta xigta ayaan warwey